waanagii ku wareysanay idaacaddeedu ku wareysatay sheegtay inaad sacuudiga iyo isbahayskan imaaraadka si toosa u raacday marka mowqifkaasi ma waxbaa iska bedelay arrintaas gebigeediiba wad ogtahay in iyadii oo dhan iska shuuqday marka hadda inaan wakti isaga lumino ama sheegna uma baahnin calaa kulli xaal wixii kastoo jirayba waanu ka heshiinay dowladda dhexe waana ka wada soconaynaa. aynu ku bilownay madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale xaaf ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo deegaanada galmudug socdaal dhinaca dhulka ku marayay ay ku guulaysteen inay dib u heshiisiin dhex dhigaan beelo xurgufe ay u dhexaysay oo ku nool deegaanada galmudug. xaaf oo waraysi gaara siiyey idaacadda v o a ayaa sidoo kale sheegay in isagii madaxweyne farmaajo ay isla ogolaadeen in degmada cadaad ay sii ahaato xarunta baarlamaanka galmudug kadib markii sidaas ay codsadeen dadka deegaanka amaba degan magaalada cadaado. xaaf ayaa dhinaca kale waraysigan uga hadlay khilaafkii isagii madaxtooyada villa soomaaliya u dhexaysay ee ku aadanayd arrinta khaliijka. cabdilcaziz xuseen cusmaan ayaa khadka telefoonka ee muqdisho ku waraystay mudane xaaf wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida socdaalkii galmudug u guud ahaan kusoo dhammaaday. walaal safarkaa horta guulba noogu soo dhammaaday alxamdulilah 11 beri ayaan galmudug ku dhex jirnay magaalaba mar kulligood ku wada hoyanay wada aragnay aada iyo aada buu u fiicnaa. muhiimadaha ugu weyn waxay ahayd tii oo arrintii ahlu sunnada iyo wixii oo la isku dhex daray oo meeshii caasimadii la tegey iyo dib u heshiisiin hadafka dhan oo madaxweynaha oo aada iyo aada uga shaqaynayay aada iyo aada isku taxallujiyeen kulligayaana aan ku mashquulsanay waxay ahayd si dib u heshiisiin loo helo dadka loo heshiisiiyo. marka ma kula tahay in dhammaan madaxweynuhu meeluhu marayey dadkiis haystay hadday noqon lahay dhinaca xeraale hadday noqon lahay dhinaca cadaado hadday noqon lahay dhinaca budwaaq iyo dhuusamareebba inuu dadkiis ku soo dhoweeyey isku qalbi furay oo ay halkaasi dib u heshiisiin rasmiya ka dhacday? wallahi walaal dib u heshiisiin rasmiya runtii way dhacday. xeraale iyo cadaada iyada wax saasi ma jirin waxyaala iska yaroo challenge ahayd laakiin waana iska dhamaatay. laakiin meesha ugu weyn waxay ahayd xeraale iyo caabudwaaqa waxoogaa ay nabadgelyadeedu xumayd laakiin hadda ciidan aan geynay una sii badin doono insha allah. waa dadka wax dhex yaaleenna waa isugu yeernay odayaashoodii waa wada aragnay wax badan baa nooga soo kordhay. madaxweynuhu runtii si fiican buu ugu soo qancay uu soo arkay. marka beelahan wax kala tirsanaya ee madaxweynaha iyo adigubaad la soo kulanteen si loo heshiisiiyo dhinaca dowladda dhexe markaad eegto madaxweynuhu maxay ka codsanayeen? ma madaxweynuhu wuxuu sameynayay ballanqaadiyo in dowladda dhexe ama ay wax siinayso ama lacago ku yaboohayso ama xilal siinayso si heshiisi ay u qaataan? ma wallaahi waxba wixii development oo caadiya uu ka hadlaayay oo weliba wuxuu ku shardinayay haddaynaan nabad keenin oo aan nabad la helin horumarin ma helaysaan. marka wax ballanqaado madaxweynuhu isagu xilal uu soo ballanqaaday ma jiraan beelaha? ma wax xilale iyo waxaas lagama hadlin. waxaa laga hadlayay dib u heshiisiin iyo nabadeyn iyo in horumarin iyo development ay helayaan. waa tahay dhinaca cadaado waxaad sheegtay in iyaduna ay ahayd caqabad idinsoo wajahday. sidaan la soconno dadka cadaado degani tan iyo markii aad heshiiska la gashay dhinacan ahlusunna iyaguna way qawadsanaayeen qaabka aad wax u wado xitaa kamay soo qeybgelin caleemasaarkiinii dhuusamareeb. xitaa waxaa dhacday in xitaa ay sheegeen in ayna ogolayn inaad cadaado ku noqotid laakiin ugu dambeyntii waxaa muuqatay in arrintaasi heshiis laga gaaray oo madaxweynihii mar kale ku noqday. bal arrintaasi in yar noo faahfaahi maxay ahayd xiisadda cadaada adiga kaa soo wajahday sideenaad ugu guulaysateen inaad arrintaasi xalisaan? wallahi arrintaas waxay ahayd dadku dee iska mar haddii meeshii la joogay dee annagii yaanala ka guurina dowladdii iyo waxuuna naloo reebo oo yaana meecdaa nala dhigin bay ahayd. ayadiina waa ku guulaysanay oo waxaan hadda aan ballan qaadnay ama aan samayn doonaaba meeshaan dhuusamareeb iyo cadaadada 70 kilomitr bay isku jiraan oo wax aada isugu dhow. in hadda baarlamaanka kusii yaro shaqeeyo wasaaradaha qaar kusii yaro shaqeeyaan waxyaalaha horumarno ay maaragtay dalbanayeenna waa laga ballan qaaday in la sameynaayo. police stationna iyo xabsiyaal iyo aeroboortka iyo loo hagaashiyo waxaasoo dhan waanu ku qancinay. iyagiina hadda waa wax dhibaataha kama jiraan. saaka waan soo marnay gacan furman ugu soo dhaweeyeen
intaasna maaragtay waan ku wada hadalnay waan samayn doonaa insha allah. marka waxaad iminka iclaamiseen adigiiyo madaxweynuhuba in Cadaado ay sii noqoto xarunta baarlamaanka maamulkaaga, marka ma dalab iyaga dhinacooda ka yimid baa mise idinkaa u gartay? maya, iyagaa yimid waa in maaragtay wixii wax nooga haraan, marka iyagaa dalbaday infact oo yiri baarlamaanku almeena wax isku xiran isaga ka jire bal baarlamaanka ha kusii shaqeeya halkan ha ku shaqeeyo, iyadana waanu ka aqbalnay. intee in leeg baad marka ay sii noqonaysaa inay noqoto xarunta baarlamaanka Cadaado? annagu haddii ilaa intii suurtagal haddii ay noo habboonaato oo baarlamaanka iyo ay nala aqbalaan, annagu waxaa jeclaa inay weligood joogaan. wasaaradaha qaarkood xataa waa geynaynaa, wax dhibaato ay ma jiraan, taas caqabad dambe insha allah ma noqonayso. marka baarlamaanka galmudugna waa inay arrintan iyaguna dhinacooda ansixiyaan soo maaha, in ay Cadaado u aqoonsanaadaan inay noqoto meeshii ay kusii shaqayn lahaayeen? baarlamaanku iyagu dee iyagu way ku khasban yihiin, waana maaragtay waana ku shaqayn doonaan. haddii wax ka soo laabtaana dee waa la arki doonaa, laakiin annagu waxaan ku dadaalaynaa in baarlamaanku nagu sii shaqeeyaan meesha ay noo sii joogaan. waa tahay madaxweynaha Soomaaliya wuxuu sidoo kale tegay Hobyo, halkaas uu dhagax dhigay dhismo deked halkaasi laga sameeyo. marka muxuu yahay qorshaha dhismaha dekeda Hobyo? goormaa la filayaa inuu bilowdo? yaana idinka gacan siinaya dhismaheeda? ma dawladda wax idiin ballan qaaday? wallahi dawladdu waxbay noo ballan qaaday, waxyaalo kale oo sugaynaa. ganacsatada laftooda waxaan rabnaa inaan ka qayb gelino, oo dekeda waa la dhisi karaa in la dhiso. ganacsato fara badan baa hadda maalin maanta inay yimaadaan bay ahayd, waxbaasi ka noqday. waana ku wada hadalnay inay meesha maal gashadaan, dekeda dhistaan, magaalada dhisaan, ay maaragtay shaqo fiican ka qabsadaan meesha si gobolku u dhisma. haddaan deked la helin gobolku ma dhismaayo. marka ganacsatadeeda iyo nafteeda iyo waan isku tashanaynaa. dawladdu waxay noo heli karto iyo waxaan anagu heli karno iyo waxaan meel kale ka helaba, deked waa naga go-an tahay inaan dhisno sanadka maanta. goormaad markaa bilaabaysaan dhismaheeda? haddii sida ugu dhaqsaha badan. hadda istaadi yar baa noo haray, aan samaynaynaa 2 bilood soo socotaa. waxaan rajeynayaa in shaqo bilaabata. waa gartay. ugu dambeyntii adiga iyo dawladda dhexe khilaaf baa dhexdiina ka dhashay oo ku aadanaa mowqifkii aad ka qaadatay arrimaha khaliijka ka taagan, laakiin iminka waxaa muuqata in adigii iyo madaxweyne isla socoteen oo safarka sidaan arkaynayba waqti badan isla qaadateen. haddii aan dib u milicsano mowqif ahaan, maxaa iska kaa bedelay arrintii ku saabsanayd muranka ka taagan khaliijka, oo adigu Sacuudigaad iyo Imaaraadkaad si toosa u raacday? mowqifkaagii ma waxbaa iska bedelay? wallahi adan aniga khaliijka sidaan u aaday iyo sidii loo fahmay baa kala jaad ahaa. anigu waxaan u aaday nimanka xoogaa annaga gobolkayga waxba may tarin sanadihii hore. marka gobolada kale wixii ay tareen oo kale ayna taraan, oo maaragtay oo ciidamada iyagoo noola dhisaan xarumo, iskuulle iyo waxay dhisaan degmooyinka, shaqo badan bay ka qabtaan, gaadiid bay siiyaan. annagu marka waan qadsanayn. anigu marka meesha waxaan u aaday wax kale ma ahayn, waxay ahayd annagu waa qadsanahay dee qaybkaygii dee gobolada kale waxbaa siiseen, annagana waxayagana siiya. si kale u tarjintay mooye anigu wax maaragtay oo gaara aan ka doonayna ma jirto. haddana arrintaas way dhammaatay, waana ka heshiinay. dawladda dhexe iyo siyaasadeedana anigu kama weyni. waa tahay, laakiin heshiiska dawladda dhexe aad gaadheen waa meesheeda. mowqif ahaan waa inagii ku wareysanay, idaacaddeedu ku wareysatay, sheegtay inaad Sacuudiga iyo isbahaysigan Imaaraadka si toosa u raacday. marka mowqifkaasi ma waxbaa iska bedelay? adan arrintaas gebigeediina waad ogtahay in iyadii oo dhan iska shuuqday. marka hadda inaan waqti isaga lumino ama sheegna uma baahnin. calaa kulli xaal wixii kastoo jirayba waanu ka heshiinay. dawladda dhexe waana ka wada soconaynaa. imaaraad hadday waxna siinayaan iyo haddii waa warsan karnaa. hadday dawladda dhexe noo soo marinayaan waxba kama qabno, hadday annagana siiyaan waxba kama qabno, iyo ciddii waxna siinaysaba. laakiin arrintii iyadoo xoogaa ayaantii folkaa waa joojinay. arrintaas way dhamaatay, aan kuna heshiinay. marka mowqifka dawladda dhexe ee ah in ay dhexdhexaad ka yihiin khilaafka carabta ka taagan, ayaad idinkuna mowqifkaasaad dawladda kala mid tihiin?
warka horta lama rabo in wax la hikaadiyo maogtahay aniga war iga raadise anigu arrintaasi way dhamaatay calaa kulli xaal waxaana go-aan qaadanay anagii dawladda inaan wada shaqeyno imaaraadka dawladda u tagtay iyagaa dawladda cazimeen laftooda way u tageen madaxweynaha tegey arrimihii iska ahaa inay dhexdooda inay dhamaatay baan filayaa iyaga iyo xataa imaaraadka iyo sacuudigaba kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale xaaf isagoo magaalada muqdisho jooga ayuu khadka telefoonka ugu warramay waryahayga cabdilcaziiz xuseen cusmaan.